الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خياري مركل سودو هذا وغرنكي وكلمة كلا إن شاء الله. waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo saddex qodob على مسارك سلطان كلا يراهد سلطان عبد المالك سلطان محمود سلطان هيبة كلمة كوبن بانكورن دونا قراد شامع قراد علي شامع شبيل يا سلطان داود سلطان محمد سلطان عبد القادر كلمة بانكورن دونا إري كوبن وحن كورن دونا ورئيسي ودوان بحيي نينكلا يراهد جوحة حبيب بقى يقول تساكا مقرنيو marka hore waxaan rabaa inaan hambaliyo u diro iyo duco suldaankaas madasha weyn kulmiyey suldaan cabdimaalik suldaan maxamuud suldaan haybe ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu u yasiro oo ku sharfo oo ku karaameeyo xilkaas ummadda uu xilka u qaadana ilaahay uu u sakhiro iyagana waxaan u rajaynaynaa inay noqdaan kuwo u dhaga nuglaada wanaagga iyo ixsaanka uu suldaankooda ugu yeedhi doono runtii waxay ahayd madal aada u qiimo badan allaha nabadda ku soo dhameeyey baana mahad u sugnaatay dad badan baana isku arkay arrintaa kuma dheeraanaya intaasaan ka odhanaya qodobka labaad waxaa meesha yimi nimankii libaaxyada ahaa ee ismidii ICC qayb ka mid ah oo hogaaminayo mudane garaad jaamac garaad cali oo ay ka muuqato sharaftii hablihiisa iyo wiilashiisa runtiina ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku galladay oo hubiyey oo aan rajaynayo in mar walba la xasuusnaado dadkii halkan lagu soo gaadhay iyo fagaarayaasha saas in looga muuqdo kuwii kalifay saad ka war haysaan waxaa socota dacaayad la yidhaahdo nimanka la yidhahdo reer SSC nabad ma rabaan nabaddii way diideen barnaamijkaas waxaa iibinaya juxa tiim iyo deni oo waraaqaha ay qoreen waxaa ka mid a riisanka aanu hargeysa u tagnay oo aanu maxaabiista u soo qaadnay waxay sheegeen inay nimanka SSC ka taliyaan nabadda diideen inay maxaabiista inay ka hadlaan diideen second SNM team waxba isma bedelin beentoodii bay gadayaan guddi baanu magacownay guddi waa la diiday isimadii kililka oo iyagu ay arbusheen waxay ku andacoodeen isimadii kililkana SSC baa diiday anagu waa ogolahay iyadoo masaladaas la rabo in laga jawaabo mar labaadna laga dabategayo inaan isimada kililka been lagu howlgelin ayaa madashu waxay ahayd madal sharafeed loo joogo caleemasaar dad badan baan arkayaa waxaan laleeyahay garaadku ceergaabo kama hadlin garaadku xaa kama hadlin waynaad ogaataan meeshan looma wada hadlayn harti iyo isaaq gogoosha ma ahayn xaajada SSC iyo SNMna meesha ma ool meeshana waxay ahayd munaasabad dhaqan dadka oo dhamana marti bay ahaayeen inta badanna martida waxaa la yidhaahdaa marti meydiya martiba waa loo taliyaa garaadku wuxuu ka jawaabayay ereyga la yidhaahdo fariin buu dirayay wayna ku habboonayd fariinta halkaa in laga diro SSC isimadeeda iyo maamulkeeda fariintii ay direen 25 August oo ay awoodeen inay burco soo taabtaan fariintii ay direen buu maantana garaadku diray munaasabad kastana waa laga diraa arrintaasu laa tagyiir walaa tabdiil isma beddesho lamana kordhiyo waxna lagama dhimo yacni dadku markay dhaqan leeyihiin markay diin leeyihiin markay akhlaaq leeyihiin waxay leeyihiin mabaadi sugan oo la ilaaliyo oo aan isbeddelin inaannu nabad doonayno colaadda aanaan xiisaynayn
nala ku qasbay ummadda ilaahay baa markhaati ka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markhaati ka ah garaadku marka arrintaasu ka jawaabayay meeshana waxaa joogay ninkii qiimaha badnaa ee la odhan jiray jaamac shabeel waan ka mahad celinayaa garaadku salaanta uu jaamac shabeel siiyey waxaana leeyahay waad nagu matashaa wuuna mudan yahay jaamac shabeel sidaa in loo salaamo ujeeddada jaamac shabeel aan u taageeraynaa ma aha inuu jaamac shabeel annagana jecel yahay ma aha annaga inuu jaamac shabeel ixsaan noo sameeyey jaamac shabeel waxaan ku taageeraynaa waxgaradnimadiisa nin aqoon-yahan oo warsangeliya wuxuu igu yidhi niyow ninka noocaas oo kale ahi wuu ku yaryahay buu yidhi kaasoo kale hadday talada u dhiiban lahaayeen buu yidhi mar hore ina qabsan lahaayeen yacni ninkaasi guurtinimada iyo indheergaradnimada iyo waxgaradnimada iyo bini aadamka sida loo kasbado oo loo hanto buu yaqaanaa daadis waayba wuxuu uga noqday tuka cambaar leh wax magaratadii hargeysa joogtay jaamac shabeel baa meesha joogay maadaama marka lagu celceliyey nabadda garaadku wuxuu taabtay bayska colaadda iyo colaadda waxa buddhiga u ah oo ah duulaanka oo ah sheegashada oo ah kibirka oo ah isla weynida war suldaan daa'uudow duulaan kuguma nihine isa soo taagoo soomaalida waxaad u sheegtaa inaadan duulaan nagu ahayn waa jumlo dhammaystiran oo ka turjumaysa aasaaska dagaalka iyo gardarrada in suldaan daa'uud reerkooda wadaan dhagoolow maqal ummaddii soomaaliyeed ee xafladda joogtay oo ay ka mid ahaayeen esimada somali state iyo soomaalidii martida ahaydba waxay markhaati ka noqdeen in uu jaamac garaad cali taagan yahay 25 august 2023 halkii u taagnaa oo ahaa war nabad dhulkiinu hayd qaado ninka la yidhaahdo suldaan daa'uud waa ina suldaan cabdulqaadir weeye dhallinyarada aan ka dabageeyo walow uu yahay nin dhallinyaro ah oo tiimkii dhagarqabayaashii waxmagaratadii hargeysa joogay ay isticmaaleen oo maalintii august ay tuuto u soo xidheen nin dhallinyaro ah oo sandalada wax ka yaqaano weeye oo baqalka madow had iyo joor la daba socda markay macaawis ka dhacdaba inuu ku qabto waa markii labaad uu xaal ka bixinayo aabbihii suldaan cabdulqaadir buu ahaa wuxuu ahaa nin aaminsan midnimada soomaaliya wuxuu ahaa markuu cigaal xidhay hawada iyo cirka iyo badda hargeysa ninka ka qayb galay shirkii carta buu ahaa wuxuu ahaa nimaan gadaashiisa laga hadlin isagana waan rajaynaynaa inuu ka dhabeeyo arrinkaa ah maanta in la mideeyo soomaali suldaan daa'uud si hufan buu uga jawaabay inkasta oo la yidhi meesha erey baa ku jiray oo ahaa adaa bari nagu matala yacni bari waxaa la yidhaahdaa mar kasta oo aad joogtid dhulka nimankaas reer sheekh saxad degan yihiin markasta meesha bari kaa xigta baa bari la yidhahdo habeen baa waxaan jirtay baana waxaanu fadhiisannay makhaayad la yidhaahdo hargeysa kilaab baanu ka cashin aniyo nin kale aanu hayno markaasaa kii mudalabka ah baana dhaafdhaafay dhowr goor hadhowbu wuxuu ku yidhi kii ila socday intuu xanaaqay waruuxaagan etoobiyaanka maxaad caawdha noo dhaafdhaafaysaa dalabka nooga qaadi markaasuu yidhi wallahi etoobiyaan maaha idinkaa reer bari ah oo saa unbaa isugu jeedan hoos ba un foorartaan buu yidhi marka ereygaas macno badan male muhiimaddu waxay tahay inuu aqbalay suldaan daa'uud inay reerkooda joojiyaan adyadda iyo sheegashada nimanka ka dambeeya ma ka yeelayaan waa matalo kale wey laakiin jaamac garaad ismaaciil wuxuu maamulkiisa ku matalaa waxa weeye inaanay duulaan ahayn dhul aanay lahaynna inaanay doonayn laakiin wixii wadahadalah iyo siyaasadaha iyo arrin kale ah dowlad SSC la yidhahdaa xilkaa iska leh laakiin fariinta garaadku waxay ahayd in dunida aan been loo sheegin isimada gobolka deganna Somali State-na aan mar labaad been lagu howlgelin ilaa inta la howlgeliyey oo dhanna loo dhaqaajin waayey ayaa iyagoo hawshii ku jira buur madow la adeegsaday haddana mar labaad baa waxa la leeyahay apologies baanu bixinanahay hawshii gala arrintii marka garaadka dadka wax magaratada ah ee social mediaha ku jira la kala cararay kuwa waxay leeyihiin garaadka ceerigaabo kama hadlin garaadku labadii gaatoo miyuu ka tanaasulay garaadku kuwo kalena waxay leeyihiin nimankii waa soo laabteenoo
وحويان قورت دولة السوماليلاند كو أدكيسي إنان للا هادلين باي سو لابتين waxaa soo dhami waa kadib weeyaan iftiraa weeyaan waa iftiraa ceerigaabo magaalada la yidhaahdo sad ka war haystaan halkaa niman baa deganaa harti ah niman baa jira gahaylaha oo maandhowsto magaalada laga dhaxaliyey nimankaasi waa nimanka stiil xataa markay ceerigaabo la wada joogay guryahoodii 90kii la qabsaday waa la haystaa gahaylaha wixii dhiig iyo uu isku jiray waa iskaga guureenoo bari bay aadeen ashkhaas loo haysto madax furasho ayaa maandhowta laga hadlayay nimankii harti ee gobolka deganaa ama dhulbahanted ama warsangelide horaan waxaan idinku sheegay war dhulka oo laga qabsado waxa ka fool xun in dadka lagu qabsado oo dadka la dulaysto oo dadka la bedelo isku daro gobolka nimankii deganaa oo hartiga la oran jiray marka nimanka laga hadlayo la haysto laga reebo hadday dhaqan lahaayeen hadday siyaasi lahaayeen hadday dhalinyaro lahaayeen qof hadlaya kuma jiro xataa hadday soo qaxeen oo dhulka xorta ay yimaadeen inay hadlaan ma awoodaan 30 sano kuwa qurbaha jooga inay hadlaan ma awoodaan 30 sana dadkan la bahdilayay oo gacanta wax loo saarayay hadeerna wixii gacanta loo saarayay baa loo kordhiyaa kuwa ganacsata waaweyn baa jira oo gacanta wax loo saarayo bal idinku soo hela qof reer ceerigaaba ah oo ama dhulbahanta ah ama warsangelayaho dhaqana ama siyaasi ah ama aqoonyahana oo intuu fagaare isa soo taago bini aadamka wax uu rabo u sheegi karaya dullinimada aan idin sheegaya taa way saasaa la isu dullaystaa marka in ceerigaaba laga maqan yahay oo dadka jiilka hadhay la badbaadiyo aad iyo aad baan u soo dhawanayaa ceerigaaba ha la haysto ha ka heeseen reerkaasi ha ka dabaaldegeen maryahooda ha ku xardhadeen intay doonaan ha joogeen iyagay u taallaa laakiin in jiilasha soo hadhay la badbaadiyaa aad bay muhiim u tahay waa 30 sano aaway dadkii ceerigaaba deganaa aaway kuway ka qaxay cidda hadlaysaa u badani waa gabdho nin ama dhulbahanta ah ama warsangeliya oo intuu fagaare isa soo taago sidii nin u hadli karaa ma jiro in cabdullahi xasan baa wax laga sheegay rag hub qaaday waa wada haliyay nabad sa haystaa waxsay kala hadhaan maalintay rag isaleelaan kuwii cuqaasha sheegan jiray kuwii isimada sheegan jiray kuwii aqoonyahanka sheegan jiray nin hadlayaa kuma jiro bala marka ilaahay dadka ceerigaabo iska lahaa oo degan markay yimaadaan oo saaxada ku soo laabtaan baa ceerigaabo laga hadlayaa inta ka horeysa nimankaas ha ka dhaxaysan qodobkaasna intaasan ka hornayaa qodobka la yiraahdo maaldhowd waxa wareysi bixiyay ninkii loo jiray juxa waxa uu sheegay ilaa cabdullaahi yuusuf inay wada shaqeyn ka dhaxaysay goosatada cabdullaahi yuusuf ilaahay naxariis intaan ka xasuusto maalintii laga saaray ninkii la reeyay la sacaanood baa la wareystay aad buu maalinta uga xumaaday waxa la weydiiyey wax xidhiidha ma lahaydeen idinku Soomaaliland wuxuu yiri ninkii dhintay ee ina cigaal la oran jiray xafiiskiisa waa laga helayaa waraqo aan isdhaafsanay oo guud ahaan qadiyada Soomaaliya khusaydu yiri laakiin buu yiri kani waa tuulayna man isticmaalayaan way yiri tuulna ma istahlayna la hadlo juxa ninka la yiraahdo waxaan idin daarayaa codkiisa muddo 5 sano hadda laga joogo barafaylkeena wuu ku jiraa waan sheergareeyay isagoo leh SNM baa waxay noo diidan tahay hadaanu nahay reer garoowe inaanu hindisno oo sanka nahaysa dagal ma aha sankan farka galinaya hindisin hada huwa juxa kaasay waxa xiisa leh ninka wariyaha ay su'aasha weydiiyay oo ah nimanka Soomaaliya kala goynaya wixii ay og tahay geystay dhulkii Puntland qayb haysta dhulkii Puntland qayb haysta waa maxay ihsaanka u sameynaysan xidhkaad la leedihiin laakiin horaan waxaan uga sheekayay nimankan marka la sacaanood ba laga reebo iyaga oo laba dekedood leh 3 garoon oo caalamiya leh badda cas iyo badda hindiya badegan ayaa waxa loo bixiyay maamulka taagta daran wayna aqbaleen kama jawaabin maamulka taagta daran ayaa loo bixiyay shalay bay ahayd markii looga heesayay berbera garoowe iyo kuwa xintama waxa iga xiga amxaar marka nimanka iyaga jecel SNM laakiin ma jecla
iyagaa u shaqeeya ninka la yidhahdo juxa tabashada uu sheegay cabdulaahi yuusuf oo aasaasihii SSDF halaayo naxariiste arrinta apologies buu ka bixiyey wuxuuna yidhi sidan haddaan moodaya waxaa ma sameeyeen welina ma arag nin juxa aan ahayn oo majeerteen ah oo waxaa wax ka dayaya ama taariikh ka dhiganaya ama ku faanaya puntland maalintii la aasaasay ujeeddada loo aasaasayna waxaa lambartuu ka ahaa in laga hortago goosatada doonaysa waddanka inay kala goyso bilcakis wuxuu yidhi marada thanaa'iya baanu wadaagnaa xanuun laba geesoodaanna wada haya waana iskaashanaa waxa isweydiisaa puntland yaa la yidhahdaa horta puntland dadka la baxay oo loo dhisay ma dadka tabashada maba SSDF bay ahayd marka juxatiisa loo raaco reerka la yidhaahdo harti iyo leylkase iyo soomaalidii inta aan ahayn gobolkaa deganayd baa maamulkaa ku midoobay laakiin garashada juxe iyo aragtidiisa oo uu faroole aabbo ugu yahay ayaa waxay keentay sidan in loo hadlo dadkan waddadan lagu socodsiiyo marka ha iskaashadeen ha jeclaado waxa uu u gooyaan arkaynaa qodob baan ka booday SNM oo hadallada salaadiinta uga faa'iidaysanaysa si aan sax ahayn oo leh isimadii baan noo soo laabtay kadib markii dowladda iyadu ay diiday SSC inay la hadasho horta waxaan idiin sheegayaa SSC waa la aqoonsanayaa oo ciro wuu aqbalay mataladaas laakiin xataa hadduu aqbalo oo uu aqoonsado SSC qorshaha kuma jirto inay la sheekaysato ciro in la yidhaahdo macquul maadaama laba maamul la noqday maxaabiista aan isu sidayno wixii aan dambiilayaal ahayn laakiin iskaashi dambe iyo wada hadal dambe iyo xidhiidh dambe taas way dhammaatay ha ku bishaaraysteen taa ha liqaan maxaa yeelay siilaanyo xal kale markuu waayey wuxuu go'aansaday inuu khilaafo khaatumo iyo cali khaliif markuu aqoonsadayna wixii ka dambeeyey waa la ogaa khiyaanay noqotay ama ha aqoonsadeen ama yaanay aqoonsan never ever in dib la isugu laabto oo la xidhiidho oo la sheekaysto taa anaa hoosta ka xariiqay finally waxaan rabaa inaan kaga baxo nin baa wax ii soo diraan saaxiibani axmed madoobe oo la SSC ma jirto war axmed madoobe nin waayeela oo xanuunsanaya oo 12 sano hal qol ku xidhan oo jilib diyaarad u raaca oo 30 kilomitir oo Kismaayo ah Kenya ay ku wardiyeyso way horay baan waxaan u idhi wuxuu ceeb ku yahay Jubbaland wuxuuna nabar ku yahay Soomaali wuxuuna boog ku yahay ugaadeen uu ninkan bedela oo meesha dhalinyaro oo wax akhriya oo wax qora oo dadka gobolka la degan iyo Soomaalida fahmi kara kaana horay baan u idhi marka waxay isku xanuun yihiin Siciid Cabdullaahi Deni oo la leeyahay hadda safarada waddanka joogo waraaqa u qaybinaya dadka ku andacoonaya aniga shakhsiyan igu eedaynaya inaan harti kala dilayo horay baan waxaan idinku sheegay duqeynta oo laascanood ku socota waxaan idinku sheegay Deni iyo Juxa iyo Faroole team nimanka aan hanka qaran lahayn hanka qabiil aan lahayn ee baad looga qaadi jiray Garowe 15 sano ee laascanood haystana faraxsana oo habiga aha maanta markii sharaftii dhulkaasi soo laabatayna gambada xidhay cadowga number 1 ka ah iyaga way hartina kuwaasi maaha dagaalkaas guul daradoodu ahaa gabbal madow oo u dumay buu ahaa waxba kama aanay geysan gacan kuma aanay lahayn ma jeerteen ma nimankaas qofkii ma jeerteen oo nimanka isku gudba ama iyaga taageersanna waa la mid weey tolnimadiisaanaan rabin ehelnimadiisaanaan rabin waanaan arki karin cadow baanu aqoonsanahay qofka Juxa iyo Deni la fakarka ah maanta maxaa yeelay war 15 sano oo halka halagu ka soconayay way faraxsanaayeen hankoodana wuxuu taagan yahay inay qofka xildhibaanka xulaan maanta oo aragteen in kun wiil la aasay oo damage ka ogtiin la geystana gambay xidhan yihiin safiirada sheeyahay yimi oo waraaqaha loo qorayo
safiirada shisheeyaha waa danjirayaal jawaasiisa oo ilaaliya danaha wadamada ay ka yimaadeen jaahilnimada iyo jaajuusnimada waxay keentay in ama lala xidhiidho ama la isla soo suuraleeyo waxaan la kulmay safiir hebel akhas ala hada anaga safiirka ingiriiska iyo mareykanka wax naga bedeleen safiirka ingiriiska iyo mareykanka iyo waraaqaha loo dirayo intay noo yimaadaan wax naga bedeleen marka dadku inay munaafiqiin noqdaan ma aha war maalintii godad iyo garaaca taangiyada laga soo rarayay oo suldaan garaasa uu muusanaabayay xagee jireen juxa iyo dani xagee bay jireen waa maalintii juxa lahaa sooliya sanaag anaguna sii dayn mayno Soomaaliland sii dayn mayso hadduu idin leeyahay dastuurka iyagana way ku taallaa koodana way ku taallaa finally waxaa la yidhi warsangeli waxay yidhahdeen Puntland baan nahay ilmaade rayaalow bilow ama aragnay Puntland ahaada laakiin bal waxaad noo sheegtaan ilayn war waxani dawladda ma aha in Puntland la noqdo ama goosato la noqdo ama SSC la noqdo macnaheedu ma aha in dawlad la yahay macnaheedu waxa weeye dhulka la ilaashanaya iyo sharafta reasonkii Puntland loogu midoobayna wuxuu ahaa in dhulka iyo sharafta la ilaashado laakiin waa la lumiyay Puntland in laga mid noqdo sharaftii iyo dhulkii baa lagu lumiyay warsangeliyow ilmaade rayaal ahaada Puntland waa soo dhaweynaa laakiin sidee u noqonaysaan Puntland sidee baa rabtaan Puntland inaad u ahaataan aaway dhulkiinni diyaaradaha iyo ciidamada uu imaaraadku boosaaso ku carbinayo oo ama la rabo in Soomaaliya lagu weeraro ama SSC lagu weeraro haddana Suudaan lala dhacayo ee laydin tusayo ma la awooda ceergaaba la idinku xoreeyo waxaan rabaa warsangeliyan u sheego faad xanaano maanta lug baa go'an laba joor baa waliba la jaray lugta wallaahi alcadiim ilaahay magaciisaan ku dhaartay duhur baan tukaday weysana waan qabaa $5,000 oo loo diray rasiidkeedii baan hayaa oo la yidhi soo dhaqaaq lacagtii waa taas 1,300 goortuu gawadhada shidaal ugu shubtay ba amar la siiyay ma bixi kartid calmiskeed badaadaysa ceerigaaba isagoo u socda wuu soo hadlay wuxuu yidhi aniga amar baa lay siiyey askarina waan ahay wiilalna waa igu taxalluqaan 1,300 oo shidaal oo hansiistay mooyaane lacagtii nin kale meelaan idinku soo diro sheegta aaway faad xanaana maanta aaway ciidankiisii maanta ujeeddadu waxay ahayd inaan ceerigaaba la aadin maxaa daacish loogu soo beegay dagaalkeeda maalintii ceerigaaba loo dhaqaaqay warsangeliyow Puntland baanu nahay baad tidhaahdeen yes Puntland annaba waan nahay waana ahaan jirnay waana ku faraxsanaan ahaano laakiin ujeeddadii loo dhisay bay Puntland lumisay waxay lumisay walaalnimadii waxay lumisay sharaftii waxay lumisay midnimadii waxayna lumisay dhulkii dhulka maanta SSC dispute area waxaa kaga hadhay inta idinku aan leedihiin anagu haddaan doono ceerigaaba waa ka tanaasulaynaa waa guryaha waaba gadanaynaa ama sida caynabay ahaanayaan lama gadayo fiqi fuliyaan deganaanaynaa maxaa yeelay dadka sharaftiisa in la ilaaliyaa muhiim ah dadka in la adoonsado oo weliba uu reer adoonsado baa wax walba ka liidata dhulka dispute area maanta ku hadhay kiina weeye kiinaan diyaar u nahay inaan ku dhimanno oo ka saarno SNM oo reerkaas inay aqbalaan reernimo baan diyaar u nahay intaan doonaynaa inaad gacan ugu sisan intaa wey horaan idinku sheegay hadday taasu dhici weyda soo maaha war annagu balambi baan leenahay ama kor wada hadla ama hoos wada hadla annagu balambi baan leenahay haddaad go'aansataan dhulka intiina istaraatiijiga ah ee xeebaha ah ee buuraha ah inay ku soo jirto dispute area oo aad ku raacdaan dani waxa uu wado oo dhagarta ah we welcome no problem intaasaan odhanay khiyaaray guul baan idin rajaynayaa intaa wixii ka soo hadhay oo tiimka tuugta ah ee jawaasiista ah ee hanka qaranna aan lahayn hanka qabiilna aan lahayn ee dadka ka soo hadhay war ehel baanu nahay iyagaan wax ku nahay annagay wax nagu yihiin intaa ninkii u qaadanaya isku dir aday kuu taallaa laakiin nafiba geedka ay beertay goosan midhihii aniguna guddoon iyo xornimo woo godgelayaa guuliyo gobonnimo asalaamu calaykum